Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Magacaygu waa Cabdiwahab Maxamed Iikar, dhigta iskoolka Saacada, gaar ahaan fasalka 8aad. Maanta waxaan ka hadli doonaa mowduuc ku saabsan Islaamka iyo soonka. Soonka waa tiir ka mid ah tiirarka Islaamka, wuxuuna waajib u yahay qof walba oo Muslim ah, qaangaar ah, caaqil ah. Wuxuusan waajib ku ahayn qof walba aan aqli lahayn, qaangaar ahayn, musaafir ah, iyo fasax sharciyeed haysta sida xaydka iyo nifaaska iyo wixii la mid ah. Allah tabaaraka wa tacaala wuxuu si gaar ah u sheegtay soonka inuu asiga leeyahay. Qof walba oo sooman waxaa wanaagsan inuu ku dadaalo Qur'aan akhriska, sadaqada, salaadaha sunnada, baarnimada waalidka iyo caawintooda. Haddaba Allah tabaaraka wa tacaala anaga aqbalo soonkeena.